wafdi ka socday maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ka dhisan iyo waliba dawladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa waxay soo gaareen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee maamulka Mudane Daraawiisha iyo qaar ka tirsan golaha baarlamaanka ee maamulka xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya Yaxya Cali ayaa dhankiisa madasha ka hadlay waxa xaqiiqo ah kulanka kan dabcan oo ka dhici doono 3 maalmood ka socon doono Kismaayo oo ku salaysan wada tashi ay wada yeelanayaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ah iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada iyo gobolada aan wali yeelanin hanaanka federaalka ah oo looga wada tashanayo arrimaha khuseeyo wasaaradahaas soo dhaweyntii loo sameeyay kadib ayaa wafdiga waxa loo galbiyay guriga martida ee magaalada Kismaayo waxaana halkaas sidoo kale ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha oo madasha ka hadlay ayaa waxa arin farxad leh uu ku tilmaamay in shirka 3 bari ka socon doona magaalada Kismaayo loogana tashanayo awoodaha u dhaxeeyo maamul goboleedyada dalka Soomaaliya iyo waliba dawladda federaaliga ee Soomaaliya inuu ku soo dhamaan doono si guul ah waakan madaxweynaha oo arimahaasi ka hadlay sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in waxaan aad ugu faraxsanahay in ay maanta dawladda federaalka wafti ka socday iyo wasiirada arrimaha gudaha ee dawlad goboleedyada xubnaha ka dawladda federaalka kulligood ay halkaan maanta shir ku leeyihiin waxaan rajaynayaa inay sharar badan ku yeelan doonaan hadii la hayra ayna noqon doonto inay bal aan barano sida Soomaalidu iyadu bal dhexdeeda inay wax badan wax iska weydiiso tashato oo habeenkii shirto oo maalintii shirto oo aan soo celino waayo taariikhdan lahayn soo dhawaada wasiirada dawlad goboleedyada barasaabada iyo cid kasta oo mas'uuliyiin marti kuma tiidin gurigiina baad joogtaan Cabdi Qadar Iimaan Dhaqane Home Cable TV magaalada Kismaayo